السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند بي ما أنت أرده ساي قد ده إنير ساي غير حال مركا وحن لا هاي ما أنت وحن كله وحيا صير على النظيف هذا النقل النظيف وحن كله يا ما أنت حزب الديمقراطية الشعبي الصومالي إثيوبيا أيان له يقول وحن كله يا وحي حزب كسور كذا وحا كم ده التضامن الاتحاد الخروج الصالح مربو صدحلا مربنو شعبك DDS وحو سقال 27 سنة أيا حزبك dadka loo dilahayay xisbiga dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hawaaro waa xisbi jiray waa xisbi soo halgamay annagu ma rabno waxa kale ee dadku uu hadda مرة وانكو سلامي هرت دمانتي وان سلامي لكن حزبك الاتحاد الشباب القشاش وحيالها صودا مرة ورور قطيدو حقا مقلنا اسكا آير اسكا قيل نيم وحان لها يو كلا ما انت وحان كهلا يا جيسك افريكا دباتادا لو مليقا هي جيسك افريكا الصومالي دا تكن ما بولان با ما جوبلان با ما صومالان با ما جبوتي با nin walba ninku cayriyay inuu madaxtooyada kilalka shanaad dhax fadhiisto asagoona tanna shaqo ka haynin mustafana in la afkan biyo la rabo ayaan rabaa inaan sidaa far iyo suul qaban far iyo suul sheekh axmed madow maxaa looga tashan waa miskiin waxbaan loo tashan maxaa jabuutina looga tashan waxaa weeye arrinta lagu soo duulay ee xoog in laga duulo la rabo waa madaxtooyadanada madaxtooyadanada la rabaa in laga duulo waanu ka soo horjeedna waxaanu ka danqanaynaa Soomaali oo dhan baanu ka danqanaynaa Djibouti baanu ka danqan waxaanu ka danqan maxay baashi Jubaland baanu ka danqan Kenya war maxay ahaan jirta magacaadi Kenya Soomaalida degan ee halkan xadhiga looga mareegayaanu ka danqanaynaa waxaanu ka danqanaynaa maxay ahayd baashi Somaliland nabadda ka dharagtay baa raggu isma aan cayriyay ninkii odayga ahaa inay maanta soo dhax fadhiistaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayagoo kursiye raba taana ayadana waanu ka soo horjeednaa waxaanu ka soo horjeednaa tukasta in waxaanu ka soo horjeednaa dawladda ayadoona 6 sano waad ogeydeen 6 sano ayuu cabdi xaafadaha u dhacay laakiin dirbo waa loo dhacay 15 cisho dawladdaana joogina xaafadaha u dhacay sanu ka soo horjeednaa waxaan leeyahay ummadayda NFD maxay qoladii waan ka soo horjeednaa dadka u dhacay waan ku salaamay Qadaafi waxaanu ka soo horjeednaa bahashi ishag live baan ku jiray xilli ku xigeen miya anigu ninkala marka waxaanu ka soo horjeednaa dawladda sida degdeg ah ayadoona qayilin dadka ugu ordaysan ka soo horjeednaa waxaanu ka soo horjeednaa naga day hadalka tay hooyaydu ku hadal waxaanu ka soo horjeednaa dawladda tiri mudaharaad igu taageeray xisbigii horaan duminayay ayaan ka soo horjeednaa inaan mudaharaad ku taageerayn oo nu oran waxaanu ka soo horjeednaa dawladda tiri mudaharaad baan samaynayaa ee igu taageeranaan ku soo horjeedin sidii cabdi baa laleeyahay dukaamada hala boobo waanu ka soo horjeednaa inaan mudaharaadka aanu oran dawladda Mustafa ku dhacdo inaanu leenahay baan ummadda u sheegaynaa waxaanu ku soo horjeednaa xisbiga Mustafa ag fadhiyaanu ka soo horjeednaa ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ahayd xisbiga itixaad ahaanu ka soo horjeednaa waxaanu ka soo horjeednaa dadka habeenkii guryaha nagu garaacanu ka soo horjeednaa waxaanu ka soo horjeednaa dadka afka naqalaliyeenu ka soo horjeednaa marka waxaanu ka soo horjeednaa arrinta Soomaaliya ay soo wada dhiga in la yiri mudaharaad baanu qabanaynaa mudaharaadkaas xisbigii hore Axmed sida uu hogaaminayay baan kaga soo horjeednaa baa la leeyahay kama soo horjeednaa xisbigaas oo aqoon-yahamiintii dawladda deegaanka Soomaalidu wadaan waanu taageersanahay meel kastood sheegtaan waxaanu ka soo horjeednaa Soomaali oo dhan wixii dhibaato u soo wadaan ka soo horjeednaa ee diimo dabada ka wata
waxaanu ka soo horjeednaa dowladda somalilan dhibaatada lagu sii wadaanu ka soo horjeednaa waxaanu ka soo horjeednaa cabdi inaanu iska qabanno unbay ahayd cabdi waa dambiile cagjarna asagoona 7 cisho nala joogin buu dadkanagii gaadhi laayahay 5 iyo 50 ka ahaa